السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيارتا كسو دوادا كيستا تي في iyo barnaamij kale. barnaamijkeenan maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa arrimihii taraaga. Waxaan ku soo guda jirnay sheekadii ahayd brokeradii suuqa ka baxayay oo si laba jibaarmay. Hadda waxaan rabnaa inaan insha Allah ta'ala fiirino usbuucan maxaa cusub. أسبوعاً وحا عصب إن لبا كمباني أو بروكرة أو ولي واوين أي سوق كبحين أيجانا لبدا كمباني أو سوق كبحي مت وحالي هذا ميرولارك وحنا كوبيس جريسنا مونتانا ستيت كلير هذا أيو كوبيس جريسنا مونتانا بيست بروكريج كمباني قطكو كبحي وحالي هذا ميرولارك كمباني وين أو تراكينا له نسبة بحالكي بروكرنا له بيهاين أنا جدا له الله يلورد بدن أيان أقاضي 2019 كي إلا 2021 كي ولا شقي قلاش ندمر لما شقين لكن ولي ويجرين كمباني وين بيهاين أولورد بدن هيستا سبيشال ريفركا كمباني جاس سوقه كباحي وقدماتي وحال الشيء مركا إن أسيت كيسة أما هنتي ده وهيستو 10 مليون إلى 50 مليون أي تاي لكن أيسم كوف اللان دونين إن أي باي جريسو أنت دين تلقول إياه وحي رادين كمبانية واوين سيدا بنجية أو كلا أو secured creditors لده إن وحوض اللسين دونه لكن دتك يرير أو سيدا عنك أو كلا هلك جاري إلا شنت جاري توانك جاري وته أو small carriers كأ إن هدي العجة كل هيد العجت هذه مشاس أي كتجي دونته ما أنا أوجان كرتيت sometimes وحان استعمالنا factoring company أو لعكت كوسو هرمارية so 2 days أما 3 days لعكت هذه إنه وسي على جاي أبا company جي لجس وجايين أو bankruptcy حريو مركز سوقي ملحون بمرايا very volatile واي حالة ديسة ملحون أيو مرايا حالة وعدك تاي company بدن أي سوق كبحايو brokerage كلو أو وين استجنا سوق وكبحي أو company brokerة kuwaas naftooda lacaga ayaa lagu leeyahay oo careers lacag kule ayaa jira iyaga naftooda waxa ay maaragtay suuqa uga baxeen suuq xumada hadda jirta iyo dalkii oo iyo trucking industry oo si xumaanayo ha ahaatee waxa kaloo jira company-ga la yiraahdo TQL ama Total Quality Logistics article ka soo baxay aan hadda akhrinayay ayagana waxa ay la yimaadeen sheeko qatar nagu ah laakiin ayaga qaybta dambe ee waxaan u dhiganayaa insha Allah videoga don't forget to like subscribe to nagu cusub tahay and share the video inta waa arartii YouTube leeda laakiin aan u guda galo barnaamijkeeni Merolark iyo kamarigaas kale oo suuqa ka baxay waxa caqabad ku noqotay baa la yiri in ay iska bixiyaan lacagihii lagu lahaa waxaa la sheegay kambaryadan inay eersanayaan xilligii lacagta badan la sameynayay oo sanadadii la soo dhaafay ahaa in ay waxoodii ku qamaareen oo si xun ay uga cayaareen haddana deemo far badan lagu yeeshay sida awgeedna suuqa ay uga baxayaan waxaa marka jirta haddii aad tahay dispatcher cusub waxaad samaysaa factoring company-ga aad ku jirtid Aladdin OTR Capital maaragtay RTS whatever factoring company aa ku jirtid waxa ay kulli wada leeyihiin credit check meel laga sameeyo so company-ga inta loorka ka qabsanin oo darawalkaaga aadan u dirin waxaad ku samaysaa credit check badana factoring company-yada waxay qaataan A B C waa inuu ahaada company-ga ratingkiisa waa inuu A ahaada ama B ama C haddaa aragto D ka carar haddaa aragto I waa incomplete waxba lagama hayo waa new camal haddaa aragto N waa new kuwaas dhan loo load lagama qabsado sababtoo ah kuwa lacagta bixin waaye kuwa cusub kuwa aan record lahayn ay u badan yihiin so make sure inaad samaysid as a dispatcher or owner operator waxaa samaysaa credit check ku samee company-ga intaa loadka ka qabsanin so you can tell meesha ay marayaan xaalkooda inay lacagihii hore bixiyeen in kale waa arki kartaa ama waa garan kartaa taas waa mid tan labaad kambanyadan suuqa ka baxayo
lacaga ayay la sii baxayaan. So don't become a victim. aan u soo gudba marka barnaamijka TQL oo aan idin ballan qaaday inaan idin sheegi doono caqabadaha ay la yimaadeen. TQL markii aad setup-ka la samaynaysid dispatcher ahaan badanaa annaga ama owner operator haddaa adiga loorarka qabsatid ma akhrino warqadaha loo soo diro oo close-ka ah waxa ku qoran. So qoraal ayaa ku jira setup-kooda oo contractiga ala saxiixanaysid ay raahdo. contractiga qoraal waxa ku jiro dhahayo erey la yiraahdo offset. marka contractiga aad la saxiixanaysid brokerka waa iska saxiixnaa waa iska dirnaa si loorkana loogu soo diro rate confirmationka horaan uga soconnaa. Once you do the setup you never go back. wixii lagu saxiixatina ma qortid, lawyerna uma geysatid, qof legal oo ku akhriyana uma geysatid. waana wax aan wada samayno kulligeen haddii aan nahay tragley ama dispatcher ama owner operators. haddii aan nahay kulligeen qof wax akhriya naguma jiro badanaa. We don't have time for that. waxaa ku jirto clause qoraalka wuxuu qorayaa in haddii claim uu ku galo like dadka referka wada oo kale badanaa claim ayaa gala. haddii claim uu kaa galo one load in loadarka kale oo dhan lacagtooda ay ka haysan karaan oo aysan ku siinayn. So companyga offset hadduu leeyahay oo systemkooda ama warqadaha setup-ka uu ku jiro contractiga aad la saxiixanaysid offset inay samayn karaan. waxay samaynayaan lacagta loadarka kale oo aad u qaadid bay ka haysanayaan. waxaan ku ogaaday saakii article-ka muxuu soo baxay oday cadaana oo $34,000 ku leh oo gaaskii isaga bixiyey oo maintenance isaga bixiyey loorkii isaga qaaday oo dejiyey baa hal load wuxuu dhahay waxa iga galo dhahay claim because of that load loadarkii kale ay saarteen dhan lacagtii way ka qabsadeen. companygii waxa soo wacay factoring companyga waxay dhaheen lacagiina lama siinin adaan kaa qaadanayna lacagtii oon kaa rabnaa. odaygii marka uu baxay isaga oo mudaaharaad samaynayo gaarigiisii xafiiska TQL hordhigtay oo uu buuq ku furay si madaxda uu u ogeysiiyo waxa socda. lawyerkiisa markuu u tagay warqadihii markii la akhriyey oo contractigii la saxiixanaynay TQL waxaa ku jirto clause-kaas dhahayo offset baan samaynaynaa haddii claim uu ku galo oo hal load claim uu kaa galo loadarka kale waa kaa haysanaynaa lacagtooda ayay yidhaahdeen. So waa very dangerous buu yidhi lawyerka. haddii brokerka uu leeyahay offset ha la dhiilgaraynin ayuu sheegay. midda kale haddii claim uu kaa galo kolley Soomaali ay ku dhacdana waa jirtaa arrinkan oo dhalinyaro hadda ka hor iga sheekaysaa jirta. haddii hal load claim uu kaa galo TQL load dambe ha u qaadin. I know wuxuu dhahay they will try inay ku isticmaalaan oo ay loadar badan ku saartaan while the claimka uu jiro. ayagoo og wuxuu dhahay with the intention to not pay you inay shilin ku siiyaan ma rabaan. loadarka way ku saaranayaan way ku soo wacayaan hey gaari ma ku haysaa meeshaas ha loadarkaas waa kula heshiinayaan lacagta taa ma kala gorgortamayaan. way ku saaranayaan way ogyiin inaysan lacag inay ku siiyaan aysan rabin. So as long as claim uu kaaga jiro one load oo TQL ay leedahay ha isku qaadanin load kale oo TQL ay leedahay. lawyerka wuxuu dhahay they are looking for free hauling buu yiri. hauling waa track marka wax uu qaadayo. So they looking for free hauling buu yiri lawyerka ninkaas u doodayay. loadarka ay ku saaranayaan ninka markuu soo baxay loadarka ay ku saaranayaan lacag kama siinayaan. So iska ilaali, be careful. haddii claim uu kaa galo TQL don't not pick up any loads for them. iska ilaali loadarkooda ha u qaadin mar dambe. iska ilaali kuwaas. no matter how many times ay ku soo wacaan. I know inay dad baalkii loadar fara badan ay hayaan laakiin oo dadka aad u soo wacaan laakiin yaan lagu shukaaminin. haddii claim uu kaa galo loadarka kamariyada kale ka qaado. taas ayuu sheegay lawyerkaas. waana laga guulaysan waayey because of contractigii nimanka uu la saxiixday. So haddaan rabin miskiin danyaro durug aad tahay oo danyaro aad tahay inaad baxar ku geshid nimankaas arrinkaas ka feejignow. So TQL intaasaan ku daynaynaa. You never know companyga aad la dhiilgaraynaysid oo brokerka waqtiga uu bankruptcy xarayn doono ama waqtiga suuqa uu ka bixi doono. So stick with the big boys. brokerada waaweyn la dhiilgare hadduu ilaahay idmo. kuwa yaryarna chanskooda sii laakiin credit check ku samee iska hubi.
you never know waqtiga ay suuqa ka baxayaan mana garan kartid waa iska un adiga ilaah baan tala saaranay laakiin xaaladda waa adag tahay kambaniyada yaryar suuqay ka baxayaan brokeradii suuqay ka baxayaan dad badan ayaa businesskan ka farxalanayo war waa idin salaamaya don't forget to like subscribe to the channel haddaad nagu cusub tahay share the video inshallah and also pagekeena Kista TV oo Facebook aan ku leenahayna don't forget to like inshallah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي تلاقي تصالح comment section كو سوقر